Salaamu calaykum. Dunidan meel kasta waxay leedahay ahamiyadeeda gaarka ah. Meelaha ugu muhiimsan waa waqooyiga ee ka caagan deegaanka. Muuqaalkan waxaan idinku turjumi doonaa dhowr xaqiiqo oo ku saabsan dalka Finland. In badan oo idin ka mid ah waxa hubaal ah hadday u baahnaan lahaayeen xaqiiqooyin ku saabsan dalka Finland inay ka raadin lahaayeen buugaag, Google ama YouTube. Waxba ha raadinin, ilayska dunida ayaa kuu soo ururiyay dhowr waxyaabood oo ku saabsan dalka ku dhex jira duruufaha adag ee Finland. Dalka Finland waxa uu dhacaa meelaha ugu qabow caalamka. Sidaa oo ay tahay, Finland waxay leedahay waxyaalo badan oo ay khasab tahay inaad ogaato. Haddaba daawada soo dhawow, kuna soo dhawow xaqiiqooyinkaad raadinaysay. Magaceeda rasmiga ah waa Jamhuuriyadda Finland. Caasimadeeda waa Helsinki. Tirada dadkeeda waxaa lagu tilmaamaa inay gaarayaan 6 milyan, taasoo ka dhigaysa dowladda 160aad tirada dowladaha caalamka. Masaaxadeeda waa 400,000 oo iskuweer ku dhowaad. Marka la fiiriyo duruufta cimilada Finland, waqooyiga dalkaasi waa mid lama degaan ah aragti ahaan. Bay'adda barafka da'aya dhammaan sanadka idil. Sidaas daraadeed, meesha ugu badan ee la degan yahay waa koonfurta dalkaasi. Cid kasta waa ay garanaysaa jasiiradda Scandinavian-ka, laakiin arrinta khosaysa ayaa ah in Finland aysan dowlad ahaan ka mid ahayn. Laakiin xaalkeeda kama foga wax badan kuwaasi. Scandinavian-ka ku yaal sida Iceland, Norway, Sweden iyo kuwa kale ee la midka ah. Buurta Helti waxaa lagu tiriyaa tan ugu dheer Finland. Waxay dusha sare ee badda ka sareysaa 1,300 milyan oo mitir. Finland waxay u dhaxaysaa Sweden iyo Ruushka. Cilaaqada dariskeeda kala dhaxaysa waa mid xooggan. In badan oo waayaheeda ka mid ah waxay ka tirsaneyd Sweden, halka cilaaqadeeda Ruushka ay tahay mid aad u fog si ay uga mid noqoto Imbaradoriyadii Ruushka 1809. Laakiin haddii taasi aan u aragno midow heerka madaxda iyo siyaasiyiinta, balse midowgaasi waxa uu ahaa mid ay diidanayeen shacabweynaha Finland, ilaa dadka qaarkii ay u arkayeen gumaysi dadban. Waxaa daliil u ah taasi safarkii madax bannaanida Finland ee Imbaradoriyadii Ruushka bilowday gurashada miraheeda. Kadib kelmadii caanka ahayd ee siyaasiga Finland Olof Andersson waxa uu yidhi, "Annagu ma nihin Swedish, mana doonin inaan noqono Ruushiyaan, kaliya noo dhaafay inaan ahaano Finlandes." Waxaa la aasaasay ururo u dhaqdhaqaaqa go'aannimo doonka, taasoo aakhirkii keentay inay madax bannaanida helaan sanadii 1917. Laakiin waxaa dhacay dagaallo dhiig badan ku daatay oo dhex maray ciidanka ilaalada guduudan iyo kuwa cad. Ciidanka guduudan waxay ahaayeen gacanta birta ee Ruushka, halka kuwa cad ay cabirayeen rabitaanka shacabka. Waxay ku dhammaadeen dagaaladaasi guusha ciidanka cad iyo firxadkii kuwa guduudan ilaa iyo Ruushka. Finland iyo Iceland waxay haystaan rikoor ahaan diiwaan ka yar dhimashada carruurta wadamada caalamka. Finland waxaa looga dabaaldegaa maalinta 13 Oktoobar sanad kasta. Waxaa loogu yeeraa ciidda fashilka. Waa la isu imaanayaa iyadoo qof walba uu dareemayo fashil. Waxaa la isdhaafsanayaa khibrado iyo waxyaalaha lagu xoojiyo fahamka fashilka, kaasoo loo baranayo ka tijaabo cilmi ahaaneed. Finland waxay leedahay tiro badan oo haro ah. Waxaa la sheegaa 187,000 oo haro inay ku yaalaan gudaha dalkaasi. Sidaas ayaa loogu magacaabaa dowladdii kumanaanka haro. Haddii aad u arkaysid in tiradaasi ay badan tahay, waxaa kugu waajiba inaad ogaatid in Canada iyo Ruushka ay wadajir u haystaan 2 milyan oo haro. Saa daraadeed, Finland lambarka haro ay haysato waxa uu ahaanayaa mid weyn. Markii aan ka hadlayno shacabka Finland, waxaa lagu tilmaamaa dadka ugu bini'aadanimada wanaagsan dhulka, gaar ahaan la tacaamulka xayawaanada. Kama hadlayno in damiirka dadka oo kaliya la daayay, balse waa sharci adag oo ka jira dalkaasi. Markii aan ka hadlayno dhanka bini'aadanimada dowladdan, kaalay oo aan kuu sheegno Finland inay tahay dowladdii ugu horeysay caalamka xaq qaanuuni ah ka dhigtay in muwaadinku helo internet. Dowladda ayaa daboosha internet qaab bilaash ah muwaadin kasta iyo mid kasta oo ku nool dalkaasi. Finland wadamada ugu fiican ayay kaalmaha sare kaga jirtaa marka laga hadlayo caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabaha kale aasaasiga ah. Sidoo kale, waa meelaha ugu nabadgelyo fiican caalamka. Ha ka reebin dhinaca dhaqaalaha, waxay ka mid tahay wadamada sida xawliga ah dhaqaalahoodu u soo korayo.